أنا يكسر لعبتي مقالة مقدشة waxay goor sii horeysay nagu soo booqatay stuudiyaha BBC ee Nairobi waxaana weydiiyay ugu horeyntii waxa ku dhaliyay jagada madaxweynaha Soomaaliya inay u tartanto waxayna ku jawaabtay waxa igu dhaliyay markii gurigana aan ku jiri weynay banaankana aan joogo weynay gurigan ka hadlayo waxa dad badan ayaa qurbaha ku nool markii aan arkay ilmaheeni inay gaalada naga qaadanayaan oo fasaxaadayaan oo gaaladii ay midabta kor nagu hayaan oo markaas lagu leeyahay meeshaad ka imaatay ku noqo ilmaheeni ay murugaysan yihiin ay leeyihiin xaggan ka imaana madalan leenahay qaarnaba ay hataa ay maartay ka xishoonayaan inay sheegtaan Soomaalinimadooda tii igu murugaysaneed oo maartay igu dhalisay inaan u tartamo jagadan waxay ahayd hooyo Soomaali oo cunug dhabarka ku soo siday 3 kiiloomitir soo socotay isbitaal u soo socotay isbitaalka markay imaatay cunug soo dejisay dhabarka ka soo dejisay cunugii oo dhintay markaas waxaan xasuustaa anoo fadhiyo TV ka fiirsanayo cunug yaraan haysay oo markaas ay jiqaysay markaan arkay wallahi aadan uga murugooday sababtoo aniga hooyadeeda 11 ilmood ka dhinteen cudurro oo la daaweyn karo daraadooda u dhinteen markaan arkay hooyadeedii ay soo hor istaagtay waxaan dhahay qof caafimaad ku takhasusaan waan baxaya dalkeena aadaya dadkan wax u qabanaya ma jirto miya qaab kale oo arintan wax ugu qaban kartid midalan qof caafimaadka bartaa tahay qaabab kale oo bulshada wax ugu qaban kartid soo ma jiraan adigoo siyaasadda galin waa jiraan waana isku day inaan ugu qabto 2005 ilaa 2006 laakiin waxaan dareemay in wax loo baahan yahay in la suubiyo ay ka weyn yihiin tankooda ay ka weyn yihiin caafimaad leh in maarta la bixiyo ama caafimaad laga shaqeeyo laakiin siyaasadda muhiim waaye siyaasadda la'aanteeda marxaladda Soomaaliya ku jirto lagama soo saari karo dadkana waxba looma qaban karo saas daraadeeda ayaan u arkaa muhiim inay tahay korkaas in laga soo bilaabo marka Faadum haatan waxaad ka soo laabatay magaalada Muqdisho dabcan waxbaad soo indhaysay markaad aad tagtay oo wax soo indhaysay maxaa kula soo gudboonaaday ma kula tahay jagadaasi madaxweynenimada ee aad doonaysid inay tahay waxaad hanan kartid ها وأنا واركا ومركان تجي مقدشة وحن لكل ما تاجريال بدن برنامج مركز جوكتد ما أجدينا تاجر أدلة هاي مركان كدكتي وأن مارتي مالك جار أن تجي وأن لكل ما وحا أن إنده أنكو أركي ومارتي أن وجعل هذا وأنا كفر حي تاجريال ترى كبتي إن الله هاي لكن طبعا قفض مرات هاي ودكتة هاي نقن كصوماليدا يبولشدا أن صوماليدا مقدشنا واتكتي مثل هاي عقبتها كوجه الجدبون أي كوين فرصتها هاي ستة أنا وما أنا أركو عقبتها إني مارتي كوين فرصتها مركز طوحنا هي قف من سن حتى تذكر مركيدها وح لقى قبل كرمان أم وح لقى مسو صار كرو مركز طوحنا من سنة إن وح لقى سو صار كرو taasi waxay ahayd Faadimo Dayib oo ah haweeneydii ugu horeysay ee ku dhawaaqday inay u tartamayso jagada madaxweynaha Soomaaliya